wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidan ka tirsan BSF ay la wareegeen iyaga oo kaashanaya ciidan deegaan ah degmada Xaafuun ee gobolkaas. dagaal ka dhacay gudaha magaalada ayaa ciidankan waxa uu suura gashay inay guud ahaan magaalada ay ka saaraan ciidan lagu magacaabo BMBF oo hoostegay maamulka Puntland. dagaalkan ayaa daba socday dagaal shalay ka dhacay halka lagu magacaabo Laag oo ku taala duleedka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, markaas oo 50 askari iyo 8 gaari oo ciidan ka tirsanaa BSF ay ciidanka Puntland ay ku weerareen halkan. dagaal ka dhacay 24 saac duleedka Boosaasana ciidanka BMBF ee Puntland hoostaga ayaa la wareegay gaadiidkii ay ku dagaalamayeen ciidanka BSF. sidoo kale dhaqdhaqaaqyo xooggan oo iska soo horjeeda ayaa ka socda gudaha magaalada madaxda gobolka Bari ee Boosaaso, kaas oo ay wadaan ciidanka BSF oo talis weyn ku leh gudaha magaalada iyo waliba ciidanka BMBF oo Puntland ka tirsan. warka ka imaanaya Xaafuun ayaa sheegaya in guud ahaan magaalada laga saaray ciidankii BMBF, sidoo kale waxa la sheegay in laba kamid ah gaadiidkooda la wareegay ciidanka BSF-na ay qabsadeen magaalada. gaadiidkana laba kamid ah gaadiidkana ay kala wareegeen ciidankii BMBF oo ay ka saareen guud ahaan magaalada Xaafuun. isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga. waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga. dhaqdhaqaaqyo xooggan ayaa iska soo horjeeda oo ka socda gobolka Bari, waxaana xusid mudan sidoo kale in hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Deni oo la hadlay isimada dhaqanka gobolka Bari uu sheegay in diyaar uu yahay inuu soo wareejiyo gaadiid ay lahaayeen ciidanka BSF kuwaas oo shalay ay ku qabsadeen dagaal ka dhacay halka lagu magacaabo Laag oo Boosaaso duleedkeeda ah. wixii warar ay soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan hadduu eebeedmo.